xafsan maxamed luqmaan oo ahayd gabadhii Soomaalida ee Nairobi lagu afduubtay ayaa waxay ka warbixinaysaa sida ay wax u dhaceen iyo afduubkeeda cidii ka dambeysay iyadoo tilmaamtay in gabar ay aqoon u lahayd oo waliba ay lacag ku lahayd ay ka dambeysay afduubkeeda. maalin talaada ahayd gabadhu way soo wacday waxay ugu dhahday galabta ma is arki karnaa amal marka shaqada ka baxday saasifaan lacagtaada ku sii أنا وحن كده هاي إن شاء الله يسوون مرشقة ما قد ما تفهمتها تقول حقيقي ما تفايف 16 أنا وشقة حير هاي هذا موطا هوس نور كاغن أمي راعي كرتا أنا وحن كده أنت مال كيولا لا ده مال كيولا لا ده يقول هذا قبل مركوان راعي حين جيس كيولا أنا جيس ستور كشيء جيس أنا ستور كمان إبروها وحبكم مجرد بس مقرب على جاري مقرب أنت كذا كانت كذا أيضا محاول تلفون هاي ستة وشت جرينيس بس محاول مركا أنا سأوفر إن أوشة كيسنة إن لبنان أو حق مادي أو وين أو أيضا أنحر حرن درمت مذوب حرن مع الوجه أو قرصنا حأرك هالمر لقف قورت أنت قبنا أقولك يوسيد قورك ويتومان قعما يحر حرن اللغة لوجي gacmaha iga xirxireen dhahana way ii xireen qashina meesha la soo dast baash oo marka baawga ma aragtay la shiid baalkaas afka ugu gureen marka mutungiga meesha la biyay ka gidii aan intaas dhan waan dareemay laakiin waxba ma arkahay mutungiga liigu dhaxriday gaariga keensadeen meesha iga qaadeen waxay igeeneen meel kale guri kale oo isku dhaxdhisan bas guri markay keeneen waxa way igu furfuran xarga igu xirxiranay garabka igu furfuran gacmaha iyo lugaha igu xiran hadana waxay ugu sii xireenay koolo salatab ee wajiga igu xiran waxay dheen hadaa qaylaysid waan ku dilayna ee aamus waxay dhaheen marka gurigiina yaa ka mas'uulaya nambarkana siina kartaa nambarka abaayaan si ay ku dhahay walaasha inta ma joogto laakiin waa la hadli kartinaan ida cid gaarsiin abaayana nambarkeeda iga qaateen ayadana ma joogin markaas man dheeray joogtay بس ما باينا مركز مركز قاتم حيدن أون إيجاج وحتى درمت أنا قاعد وحسينين أنا مقتلة إن لكن وحنقول قبسنا العقل يرمنا العقل أنت أنا عرفتينا الشم مليون ويدهن بس حنا يقولي الله هذا لا بس حقيقي كانن بي حنون بابي إسيان إلا وحب ما إسيان كدم بمعنى أكتر ما xafso waxa ay sheegaysaa muddadii 6 cisho ahayd ay kooxahaas u afduubneed inaysan waxna cunin waxna cabin jambari wax afkay masaar inta meesha aan ku jiro dhan waxaan intaan ka badan hada meesha aan ku jirto meeshaan wax ku arkay ma leeyahay inta ku dhimanay meedkaadana dadkiin way waynay ana marka hore waxay ugu dhaheen guriga ku xiga ku jirna hada qaylis waa ku maqlayna aamus sidoo kale xafso waxay ka sheekaynaysaa qaabkii ay ku suura gashay in halkaasi laga soo badbaadiyo maalinta dambe axadii aan dhahay xafsooy beddelka inta ku dhiman lahayd qayle baan qayle ilmo yariiriisa meesha ku ciyaaray waxaan ku dhahay in igu soo yeer maamooyinka xaafad oo igu soo waceen waxaan ku dhahay maxaa dhahan inta yaa ku keen waxaan ku dhahay tuuga inta keentay ama lagu soo xiray talaada igu soo xireenaan dhahay bas waxay dhahan marka maanta ayaan tahay aan ku weydii waxay dhaheen maanta axad waay ana marka waa yaabay marka axad maanta si ku noqoto waqtigu ila orday ana ayaga aamini waay marka waxaan ku dhahay idinku wax ima qaban kartiin ee dhow keeskan idinkan ku soo gidinaaye booliisku ugu waca booliis lagu wacay booliista marka meesha way ugu qofuleen qofulku way jibin waay albaabka dhan ay fujiyeen dadka falkaasi ku geystay qayb ka mid ah ma la helay oo booliiska markay daba kaceen soo heleen dadka dhibaatooyinkaas waa la hayaa gabadhii iyo ninkeedii ma la helay gabadhii iyo xasaabtii la soo helay iyo ninka labadooda waxay dhanka kale Umar Sheekh Ibrahim oo isagu kamid ah dadka ehelahan u dhow Xafsa ayaa waxa uu ka waramay xilligii gabadhooda ay ka maqneed dareenkooda sida uu ahaa waxay naga maqneed Arbaca Khamiis Jimcaha Sabti ilaa Axad laga soo halay inta bari ay naga maqneed aad dib weyn aad noola soo dirsay mid kalena markaan gabar talnay aad iyo aadan maxaa la ii sheegay aan faraxnay ilaahan maxaa la u mahad celinay salaatu shukri aan tukunay intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi.